iyo gaajo iyo amni darro iyo dhibi ku soo marto inaad sabirtaa loo baahan yahay ilaa aad ka gaadhaysa nicma alcabdu innahu awaab haddii magac iyo maamuus iyo xoolo iyo sulto iyo waxaan ku soo maranayana imtixaan kalow inaad shukri noqdo abaalkeed marisaa baa lagaa rabaa ilaa aad ka gaadhaysa mansilada ah nicma alcabdu innahu awaab idan waxaan leenahay dunidu aynu ku nool lahay waa imtixaan gebigeedba nabluukum bisharri waalkhayr bay taagantay ambiyaduna waa dadka ugu badan ee imtixaanka la geliyey nabiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu ka mid yahay ambiyada imtixaanaadka oo dhammi soo mareen isagoo laga xoog badan yahay oo saxaabadiisa hortiisa lagu tumayo lagu garaacayo uu soo maray isagoo xoog badan oo sulta iyo power haysto dowladdiisu xoog badantay oo dadku afwaajan diinta u soo gelaya uu soo maray waxay idhahdaan rasuulku calayhi salaatu wasalaam muxamedi imtixaanaadka dhammaantood wuu soo maray ay imtixaanaad sheegata bay leeyihin haddaad siirada nebi moxamed akhrido waad ku arkaysaa wax u dhigma ay imtixaan bini aadam uu sheegtana qur-aanku taariikhda uu ka warramaya ambiyada waad ku dhex arkaysaa maalan nebiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam fitnatu lqariib buu soo maray dadkii u dhowaayoo lagu imtixaamay isagoo rasuulah oo ilaahay soo diray oo dadka khayr u sheegaya ayaa dadka kuwii ugu dhowaa beeniyeen abujahl iyo abulahab iyo quraysh tolkii ugu dhowaa adigoo wanaag sheegayoo lagu leeyahy waa kadaab waa beenaale ama waa saaxir ama waa caynkan uu tilmaamayo ilaa xad intay daba galaan adeerkii uu daba socdo oo markuu is-idhaahdo cidla hadal uu idhaahdo anaa wiilkan adeerkiiyo waxba ma oga waa sixirroole iska dhaaf haddii adeerkaa ku daba galo bal aduu qiyaas adeerkaayo aabbahaa la dhashay oo kaa weyn hadduu ku daba socdo oo midhkaad sheegtaba cagsigeeda uu sheegayo uu leeyahy ka yaranagaa dhallayoo waa adeer baanu ahay waxna kama jiraan waxa uu sheegayo yacni cidhidhigaad dareemi lahayd intuu leekaanaya kii kuugu dhowaa markuu xadkaaski kaa taago ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu u soo dejiyey qur-aanka markaa laynoogu tilmaamayaa imtixaanaadkaasi wax lagaga gudbo oo ay ka mid tahay inuu qalbiga bini aadamku cidhiidhigaasi aanu dareemin cidhiidhi kastoo aad dareemto wax lagaga caafimaado alaslu qur-aanku wuxuu tilmaamayaa alaa bidikri illaahi tadma'inu alquluub ilaahay xuskiisa in qalbigu ku dego nusuus badan oo qur'aan iyo xadiidiba way soo arooreen markaa masaa'il badan oo noocaasiya ka warramayaan bitafsiil salliga nebiga ka mida kuwa laakiin waxaan u dan leennuun inaan maanta ka hadallo altasbiix faqad tasbiixu erayga macnihiisu waxa weeyaan subxaana allah markaad leeday ilaahay baad xumo ka hufaysaa bay odhan jireen culammada soomaaliyeed ama si kale haddaynu u tilmaamno waa tansiihu rabbi can innaqaa'is waa ilaahay subxaana wa tacaala aad ka nasahayso ka fogaynayso ceeb oo dhan ilaahay uma cuntanta baad leeday waxa naqsiya oo dhamme ilaahay uma cuntamo ilaahay kamaalaadkuunbaa u cuntama alxamdu lilaahi baa markaa ilaahay aad kamaalka u sugayso ilaahay wuxuu qur-aanka ku leeyahay markaa walaqad naclamu annaka yadiiqu sadruka bima yaquuluun markii ilaahay ka soo warramay istihzaa ay qur-aanka ku sameeyeen ilaahay kitaabkiisa ku sameeyeen rabbi gaalnimaday ka gaaloobeen waxay xumo sheegayaan ilaahay abuurto waxa ay ka sheegayaan nebigiisiyo ay waxaa ka sheegayaan dadka waxaan ka sheegayo qariibkii iyo dadkii ugu dhowaaya ayaa ilaahay wuxuu leeyay fii suurati alxujaraat walaqad naclamu annaka yadiiqu sadruk waa ognay baa ilaahay yidhi in laabtaadu cidhiidhiyoomayso waxay kugula hadlayaan iyo waxay alle ka sheegayaan ee adiga waxa la rabo fasdac bima tu'mar waacrid cala almushrikiina inaa kafaynaaka almustahzi'iin aladiina ilaahay wuxuu soo sifeeyey waxa ay samaynayaan dabeetana waxaa la yidhi walaqad naclamu annaka yadiiqu sadruk waa ognay in laabtaadu cidhiidhiyoomayso ee fasabbix bixamdi rabbik wa kun min asaajidiin fasabbix tasbiixso ilaahay xumo ka huf multabisan bixamdi rabbik adigoo ku maraya amase ku dheehaya alle
أمانتيس وكن من الساجدين انت السجود يسي إلهي فود الروك ودقى يسانا كم من دقاء علماء دو حيدا هدان محا ضيق الصدر انت لقى الرمي لو يري فصبح وحيدا هدان هو الترياق ودواء يستشفى به وحلو عافماد وحوي مركي حنونك الله شيغي دبته هيستا ayaa ilaahay yiri sida yeel sida nabiga la yiri yeel bay culimadu leeyeen waa sida laabtu ku caafimaado walidaalka ba quraanka meelo badan waxa ku soo arooray qad na'lamu innahu la yahzunuka alladhi yaqulun ama fala'allaka tarikun ba'd ma yuha ilayka wa da'iqun bihi sadruka an yaqulu lawla unzila alayhi kanz aw jaa ma'ahu malak fala'allaka baqi'un nafsaka ala athari min lam yu'minu bihadha alhadith asafa ayat badan ba soo arooray oo nabiga alayhi salatu wassalam dadaalka uu diinta u hayay iyo dhibta lagala hor yimid iyo cidhiidhiga uu dareemayo wada tilmaamaya idan waxay culimadu leeyihiin cidhiidhiga waxa lagaga baxaa laabta qofku ay saafi noqotaa qalbigiisa ay tumeenaan ku galaa raaxatul baali wa nafsi uu ku helaa waa masaa'ilkan ilaahay u tilmaamay subxaanallahi wa bihamdihi subxaanallahi alcadiim ama tasbiix إلهي وأدو تصبيح سطه إياه أدقو أنت سجود سنة ما أنت تكنيسة كبيرة قرآن كمركا مال كستا أما مالها وضبطا النبي قال الله فرأيه إن نباتوين كاسي لكل ما يوحل فرأيه أما الصلاة هي التصبيح نبينا عليه الصلاة والسلام وكحديث الصحابة ويوريني أن كنت الماميو إذا حزبه أمر بادر إلى الصلاة haddii uu arrin dhib geliyo haddii warwar ku dhaco haddii wax mashaakila la kulmo baadara ila salaa baa la yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam salaaduu degdegi jiray sidaa awgeed baa ilaahay qur-aanka wuxuu ku tilmaamaya qur-aan tiro badan oo sabir iyo tasbiix sheegaya fasbir calaa maa yaquuluun وصبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن الليل فصبح وأدبار السجود في سورة قاف في سورة غافر إلهي وحليه فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وصبح بحمد ربك بالعشي والإبكار في سورة طور إلهي وحليه واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وصبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فصبح وإدبار السجود وإدبار النجوم في سورة الإنسان فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبح ليلا طويلا صور كائن آخرنا يوردن الله سبحانه وتعالى وحو النبي محمد عليه الصلاة والسلام وقتل ماميا وحا وكلا كل ما يددكاسي إنا يهين wax cidhiidhi gelinaya waxay ku hadlayaan wax xun inuu yahay nabiguna calayhi salaatu wasalaam rabbi wax ka sheegiisa iyo diinta wax ka sheegeeda inuu cidhiidhi dareemi doono dabeetana waxaa loo tilmaamay sabir tasbiixsana ama tuko suwar kalena iyadoo salaada iyo sabirku isku xidhan yihin wastaciinuu bisabri wasalaa ilaahay uu ku tilmaamayo waa soo aroortay waxaa kaloo soo arooray nebiyullaahi yuunus dhannuun oo tolkii markuu dhib kala kulmay ka tegay isagoo cadhaysan oo moodayeen inay ilaahay u qabanin say mufasiriintu tilmaamaan oo dabeetana bad tegey doon fuulay si kastaba ha noqotee isaga sahmiguu ku dhacay doonta ha la khafiifiye la yidhi nebiyullaahi yuunus doonta laga tuuray dabeetana wuu cunay ama iltiqaab uu libqiyey nimiri xuut weyl ayaa libqiyey alla wuxuu tilmaamayaa meeshaa cidhiidhiga ah markuu galay waa cidhiidhi halkii u dambaysay baddu marka hore ilaa geed la cuskadaanatay haddaad badweynta ku hafato marka horeanad nolosha laga quustaa haddana haddaad bahal calooshii sii gasho hadaa walba bad ku jiray haddana bahal calooshii aad sii gasho waxaynu odhan karnaa waa meeshii u dambaysay
ee nolol lagaga quusan lahaa halkaa markuu galay baa ilaahay yidhi wadannuuni id dahaba mugaadiban fadanna an lan naqdira calayhi fanaadaa fi dulumaat mugdiyadaasuu ka dhex dhawaaqay baa ilaahay yidhi muxuu ku dhawaaqaya waxay culammadu yidhahdaan habeen madow oo bad madow oo bahal calooshii uu ku jiro ayuu dhawaaqay oo maxay leeyihin laa ilaaha ilaa anta subxaanaka innii kuntu min aldaalimiin wuxuu leeyahy laa ilaaha ilaa anta ilaw keliga ayaa xaq lagu caabudaa subxaanak erayanuu soconayna waa subxaanak rabbow xuma ka hufnaanta ceeb adigaan lahayn